waan ogahay waxaan ka dhashay dal aan nabad ahayn iyo dad aan jeclayn oo maalintan oo kale laga yaabaa inaysan waxba agtooda ka ahayn laakiin aniga ay ii tahay maalin weyn. maantoo kale sanad ka hor bishan aan ku jirno waxay ahayd maalin aad iyo aad ugu farxad badan, maalin aan dhihi karo Gakko Abdisata Ahmed 149 qof taas waxay u dhigantaa 6 qof maalintii. waxaad ku soo martay mid la mida kuma soo mari doonto. sanad ka hor maantoo kale waxay ii tahay maalin aan dhihi karo maalintan maalin lamida kuma soo mari doonto. waa maalintay guulaha aan gaari jiray guushii ugu weyneyd aan gaaraan dhihi karo. maalin qaasa ii tahay, maalin farxada ii tahay, maalin aan weligay iloobi doonina ii tahay. bal ka waran magacaaga oo 5 qaaradood caalamka qaarad ka mid ah lagaga wacayo, lagaga dhex dhawaaqayo, laleeyahay waxaa tahay guulayste Sattar Abdisattar Ahmed. And the winner is Abdisattar Ahmed. waxaa shaqsigii igu horeeyey keligiisa Soomaaliya ka matalayo qaybta jilaanimada anigoo la tartamaya dhalinyaro aad igu horeeyey jilinka qaaradaha Afrika ka soo jeedo. aan dhihi karo 80-yadii 70-ga 90-ga film samayn jireen, anna wuxuu ahaa filmkii igu horeeyey abad oo international film aan sameeyo oona sabab u noqday isla filmkaas guushii ugu horeysay shakhsiyaddeeda nolosheeda inaa keeno. waxay ahayd maalin Soomaali oo ii duceynayso, waxay ahayd maalin la soomanaa bil Ramadaan lagu jiro 10ka dambe. waxay ahayd maalin ay Soomaali oo isoo wada wacaysa inay ii hambaliyayso dal iyo dibid anoo teleefankayga saa u kala qabta ka silaa. waxaa kaloo ka horeysay intaas in teleefankayga asana sidaas la mid ah qabta garawaysana ayagoo Soomaalidan ka dhashay soo wacayaan rabaan inay ii codayaan sifaan guushaas aniga guriga aan keeno. waxaan xasuustaa teleefankayga inay ku jirto lambaro 3,000 2,000 meelaha gaaraya. laakiin maalintan u sheegay inaan tartamayo qaaradda Afrikana aan ka soo muuqday anoo keligayga ka ah Soomaali, rabo inaan guulaysto, lambarkaygana aan u sheegay inuu kaas yahay. wicitaanka ay ugu bilaabeen maalintaas ilaa hadda ay soo wacaan. teleefankayga waxaa ku jirta in ka badan 15,000 oo lambar ah, waxaana 15,000 nambar ay u socdeen in ay codayaan. waxay dareesiiseen Soomaalinimada qiimaha leedahay, waxay dareesiiseen inaan ahaa shakhsi Soomaaliyiisu ay jecel yihiin, inuu guulaystana ay jecel yihiin. waan dadaalay, dhulkeeda ma dhigin, waan guulaystay. farxad waxay ahayd aad u ballaaran oo aad ila qaybsateen, aan iloobi karin shakhsiyaddeeda. waan ogahay waxaan ka dhashay dal aan nabad ahayn iyo dad aan jeclayn oo maalintan oo kale
laga yaabaa inaysan waxba agtooda ka ahayn, laakiin aniga ay ii tahay maalin weyn. sababta waxaa aaminsanahay inaan ahay shaqsigii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee bilad qisa iyo sheeko Soomaali ka turjumaysa uu matalay bilad ku helay in the history of Somalia in Africa. waa aaminsanahay inaan shaqsigii ugu horeeyay biladaas keenay. waxaana mahad qaas u dirayaa dhalinyarada isoo taageertay ee isoo dooratay u aragtay inaan booskaas jilinka aan buuxin karo, matali karo, sifay caalamku u arkaan inaan leenahay qisooyin laga sheekeyn karo, wiil anaga afkeena ku turjumayno. mahadaasna waxaan u wadaa my brother directorkayga Maxamed H, producerkayga Xamza Omar. waan ogahay inay idinkana guushan maanta oo kale xaggiin aad ka faraxsan tihiin. I remember H markaan wacay directorkayga aan ku dhahay waa guulaystay, wuxuu dhahay macquul maaha, how comes sa ku guulaystay? uu aamin waayey. yacni sababtoo ah dadkan la tartamayay waxay ka soo jeedeen South Africa, Senegal, Nigeria, Angola, yacni Ghana. dad waxay ahayn filmadooda afrikaamiinta caanka ah shirkadda Nollywoodka. surprise ay ku noqotay inaan guushaas keeni karo. laakiin waxaa meesha ku jirto, waxaa qoran inaada seegayn. alxamdulilah. waxaa mahad qaas u dirayaa inta ii soo duceysay, inta isoo wacday oo iisoo hambalyeysay, inta ii soo codaysay, intaan telefoonka ka qaban waayo aan woodi waayo inaan ka qabto maadaama keligayga ahaa. dadkana ay ugu badnaayeen. heer waxay gaarsiisan gacanyar inaan qabto telefoonka aan ku dhaho wixii soo waco ka qabo adiga, lacagaan kugu siinaya camal. maanta oo kale aniga maalin weyn ay tahay, aad farxad u ah, aad iyo aad farxad qaasi u ah, aad igu weyn weliba. ma aamin kartid gudahayga sidan farxad uga dareemayo. waxaan rajeynayaa guulahaas guulo lamid inaan gaari doono, inaan keeni doono. intaan noo lahayna inaan guuldaraysto, inaan iska ilaaliyo oo aan guusha wadadeeda raadiyo. muuqaalkan waxaan usoo duubay maanta inaan idinku mahadceliyo qaas, inaan aniga farxaddeeda la wadaago si qaasa, in maanta maalin weyna ii tahay inaan idin sheego. inaan sidoo kale qoraalada qaar aad ii soo qorayseen oo qalbiga taabanayana aan aqriyey, badankiina idin soo jawaabay. intaan ka gaari waayeen waxaan rabaa inay ii arkaan cudurdaar inay siiyaan. isku soo duuduub, maalin wanaagsan, maalin qurux badan. maanta waa maalinteeda. hambal iyo Soomaali weyn, guul baa idin leeyahay, guulaysta idin leeyahay. Somali movies to the world.